بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. waxaan qaadanayna insha allahu tacaala barnaamijyo taxano ah oo ku saabsan dhammaystirnaanta islaamka iyo islaamkeenu sida uu u yimid dadka inuu dhinac walba ka dhammaystiro noloshooda adduun iyo noloshooda aakharana uu u wanaajiyo ducada shaamilka ah ee dadka mu'miniinta ay ku ducaystaan ee ah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار taas yani oo ay tahay adduun iyo aakhiraba ilaahay oo noo hagaaji naartana ilaahay oo naga ilaali sidii ay saas ku hirgeli lahayd ilaahay wuxuu muslimiinta u soo dejiyey kitaabkan qur'aanka ah oo ilaahay uu yidhi ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam wayubashiru almu'miniina aladiina yacmaluuna asaalixaat qur'aankan ilahay wuxuu u soo dejiyey inuu dadka wadada toosan midda ugu fiican inuu ku hanuuniyo bishaarana uu siiyo dadka mu'miniinta ah inay meel fiican ay tegi doonaan marka dhammaystirnaanta islaamka waxay tahay islaamkan markuu ilaahay soo dejiyey si tartiib tartiib ah ayuu u soo degayay oo nabiga sal allahu alay wasalam aayadaha waxaa loogu soo dejinaya si kala googo-an oo tafaariiq ah si jumla looguma soo dejinin ayada oo yani ummad la dhisaayo hadba sida loo dhisaayo iyo xaajada markaa meesha taalla iyo mustawaha markaa ay joogaan iyo noloshooda sida loo bedelayo ay xaaladdu ay la socotay ilaa ay ka dhammaystiranto ummaddu ayuu qur'aanku degitaankiisa uu socday markay dhammaystirantayna oo dhinac walba lagala hadlayna aayaddii ugu dambeysay ayuu ilaahay soo dejiyey oo ah alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina islaamka sidaasa marka waxaa dhacday muslimiintii hore saasay u haysteen yani uu dhammaystirnaa yaa ayuha aladiina aamanuu idkhuluu fi silmi kaafatan islaamka si guud usoo gala ayay ahayd laakiin bimuruuri zaman muddo arrintu markay socotay muslimiintu noloshoodiina waxyaaba badan iska bedeleen awooddii iyo cizadii muslimiintu ay lahaan jireen iyo hogaankii ay caalamka hogaamin jireenna ay ka daciifeen kadib waxaa soo dhexgalay marka fahmiyo aan sax ahayn kaasoo islaamka u suureeyey suuradii uu nabigu sal ly slam uu ku ogaa suuro aan ahayn taas oo saameyn uga imaatay bulshadaha kale ay qeyb ka ahayd maxaa yeele bulshadaha kale ayaa waxaa jira fikir ah maalan reer galbeedka oo kale yani waxyaabaha arrimaha diinta ku saabsan iyo habka nolosha way kala qaadeen markaasaa diintana waxay ku koobeen meelaha lagu cibaadaysto maalan sida kaniisada oo kale ayay dhaheen qofkii raba inuu diin iyo arrimo ku saabsan ama ku dhaqmo ama yani uu arrintaasi yani u ololeeyo iyo wixii ku saabsan kaniisadaas ha tago halkaana ha ku ekaado nolosha kale ee dadku say u nool yihiin iyo ganacsigooda iyo siyaasadooda iyo arrimahoodana yani si gaar ayay ka dhigeen taas oo ka imaatay ama ka dhalatay isfaham la-aan dhex maray kaniisada kuwii joogay iyo kuwii nolosha arrimaha ku saabsan wax ka qabanayay ugu dambaystii markii muddo arrintaas ay socotay kuwii kaniisada joogay ayaa laga adkaaday waxayna go-aan ku gaareen inay halkaas ku celiyaan oo kaniisada ayna ka soo bixin qaacido waxay u sameeyeen dhahaysa dac maa lilaahi lilaahi wamaa liqaysar liqaysar wuxuu ilaahay leeyahay oo cibaadada ahna ilaahay u daa wixii boqorka qaysara uu leeyahayna boqorka u daa kala go marka halkaas dhacay diintii iyo noloshii ayaa kala go'day taasi marka maadaama ay dad kale ahaayeen adduunkiina markii dambe isu furfurmay la isu safray la isdhexgalay saameyn ayaa laisku yeeshay fikraddii ayada ahayd sidaas ahayd ayaa dad muslimiinta ka mid ah la fiicnaatay oo ay ku ta'aureen kadibna waxay dib ugu soo celiyeen dadkii muslimiinta ahaa markaas waxay ugu suureen islaamku inuu yahay qaybo kala googo-an oo yani uusan shaqo ku lahayn qaybaha qaarkood sida maamulka iyo ganacsiga iyo nolosha ee islaamku uu ku egyahay meelaha lagu cibaadaysto masaajidka dugsi qur'aanka nolosha inta looga ogol yahayna ay tahay nikaaxa iyo furiinka iyo dhaxalka iyo waxyaaba noocaas oo kale ah oo kuwaas naftirkooda lasii farageliyey oo layidhi meelaha qaarkood munaasab uma aha markaas yani in laga bedelo si loo dhigo waxyaaba ayaa lasoo geliyey taas waxay keenaysaa marka baahi ah inayn yani aan ummadda muslimiinta ah la wadaagno islaamku sida uu u dhammaystiran yahay ee ay u tahay in yani loo wada qaato arrintaas ayada ah marka waxaan ugu bixinay shumuuliyat alislaam ama dhammaystirnaanta islaamka qayb ka mid ah inaan yani si guud u sheegno on dhahno islaamkeennu waa islaam dhammaystiran oo nolosha oo dhan yani saameyn ku yeelanaya oo meeluu dhaafaya aysan jirin sababtoo ah ilaahay dhulka asaga ayaa abuuray cirkan asaga ayaa abuuray abuuritaankaas uu abuurayna sharcigii iyo noloshii qaabaynteedana kitaabkan qur'aanka ayuu usoo dejiyey oo uu yani in lagu qaabeeyo loogu talagalay cilmiga iyo aqoonta iyo tijaaribta bini aadamku ay gaarayaan ee nacfi ule bini aadamkana islaamku wuu soo dhoweynayaa oo waxaa la yidhahda alxikmatu daalat lmu'min qofka mu'minka ah xikmad waxay u tahay wixii wanaagsan ee uu ka arko
yani ummadaha iyo faa'iidada ay qaataan wuu ka faa'iidaysanaya wuuna ka qaadanaya marka in saas yani loo ogaado oo islaamkeena iyo mabaadi'diisa iyo qiyamka iyo usuushiina la isla wada ayaa laga maarmaana marka dadka yani in lagu tawjiihiyo ama lagu wacyigeliyo islaamkeenu sida uu muhiim u yahay ramadaanka iyo waxyaabaha loogu talagalay iyo ujeedada laga leeyahay ayaa qayb waxaa ka mid ah si baraatika ah in dadka loo baro mabaadi'da islaamka iyo sida yani ugu dhaqmi lahaayeen yani meesha maalan dhibaatada hadday naga haysato waxaa wax badan ka mid ah yani waxaa kala go-an oo muuqaalkii yani islaamka uu ka rabay dadka muslimiinta ah iyo habka ay muslimiintu u dhaqmaayaan nolol maalmeedkooda ayaa kala gedisan marka isqabasho la-aantaas sidii uu sheegayay in loo noolaado islaamku ee quruxda badan ee qof kasta markuu akhristo gaal iyo muslimba ay jeclaysanayaan ay leeyihin mabaadi'dan mabaadi' la heli kara ma aha ay haddana dadkii mabaadi'daas faafinayey dadkii mabaadi'daas rumaysnaa dadkii mabaadi'daas loo tiirinayey ayaa waxaa la arkayaa sidii fiicnayd ee qur-aanku uu sheegayay ama islaamku uu sheegayey ayagoo aan u dhaqmaynin taasa waxay keenaysaa marka in baahi loo qabo ah in la isbaraarujiyo oo la yidhaahdo sidaan inooma cuntanto sidaan inooma fiicno ceeb ayay inugu tahay haddaynu muslimiin nahay caalamka waxaynu u gudbino oo inooga soo daydaan ayaa loo baahan yahay inaan qudwo ugu noqono ama daysho ugu noqono laakiin sidan yani aan u dhaqmayno oo yani mabaadi'da wixii ku saabsanaa ay dadka uga fafakanayaan ayna ugu toosnaanaynin waxay dhib u keenaysaa islaamkii yani aan matalaynay ee dadka muslimiinta ah ay ku abtirsanayeen ee waata diintoodii lahaa ayaa wax badan ayaa si inaga noqonaya saas daraaddeed in arrintaas iyada ah aan iska baraarujino duruus badan aan qaadano istarbiyayno iswacdino wax isu sheegno waa laga maarmaan marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala duruusta aan qaadanayno inay noqoto duruus looga faa'iidaysto yani munaasabadaha iyo mawaasimta khayrka iyo xiliyada ay noo soo galaan bilaha fadliga badan sida ramadaanka oo kale ujeedooyinka iyo xikmadda laga leeyahay inay noqoto inaan dib isugu celino mudaarasayno islaamkeenii iyo qawaaciddiisa iyo meesha u socdo iyo waxa la inaga rabo arrimahaasoo dhan inay noo noqdaan barnaamij insha allahu tacala aan ka wada faa'iidaysan doono xalqada koobaad ama barnaamijka koobaad oo barnaamijyadaas ka mid ahna intaas ayaan kusoo gabageynaynaa insha allahu tacaala duruus kale oo arrintaas ku saabsan ayaan qaadan doonaa inta aynu ku jirno bisha ramadaan ee barakaysan waxaan leenahay kula caamin waantum bikhayr taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh